jaraa'id ay maanta qabteen mas'uuliyiinta iyo gudiyada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dhaqanka ee gobolka Togdheer ay ku taageereen wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dhaqanka mudane Cabdi Siciid Faahiye waxayna ka dhawaajiyeen in wax badan qabtay muddada yareed ee uu joogay wasaaradda waxaana shirkiisan jaraa'id ka hadlay xubno ka tirsan gudiyada wasaaradda ciyaaraha oo ay ka mid ahaayeen Cabdi Yuusuf Cabdi Jamaal Cismaan Salebaan Cabdi Maxamed Qulumbe Cabdi Rasaaq Axmed Cul Cabdi Raxmaan Xaaji Muuse Naygar iyo isuduwaha wasaaradda gobolka Togdheer ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada mudane Cabdi Kariin Muraad iyo ku-xigeenkiisa Kaysi Xasan waxaanay sheegeen in wasiirku xaliyay khilaafyo ka jiray wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer Zanaag Gabiile iyo Awdal sidoo kale waxay wax laga xumaado ku tilmaameen in iyo dacaayad baa ay ku tilmaameen waray qoreen qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa magaalada Hargeysa waxayna si gaar ah u tilmaameen wargeyska madaxa bannaan ee Waaheen iyagoo sheegay in wargeysku qoray waraansal iyo raad toona lahayn oo ay u dhiibeen kooxda waayo arag oo fadhigooduna yahay magaalada Hargeysa dhinaca kale waxay tibaaxeen inay ka xuyeen khilaafka u dhaxeeya wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Cabdi Siciid Faahiye iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi asayeeshay waxay ka gaabsadeen inay shaaca ka qaadaan waxa uu salka ku hayo khilaafka u dhaxeeya saraakiisha u sarreeya wasaaradda ciyaaraha ee dalka Soomaaliland maray ka hadlayeen arrimahaasi isuduwaha iyo xubin ka mid ah xubnaha gudiyada ciyaaraha waxa hadaladoodii ka mid ahaa تاريخ قبل كنت تقدر وقبل كحرية السوماليلاند وقبل كي لو صار عالم السوماليلاند اللي قدر ورقوا نسكات السوماليلاند وقبل كي مدحويني كمان السوماليلاند وقدر شيء وقبل كي قمت بديرة تريد السوماليلاند سيرك وحقوق ليستي ودي يري وجوبي إن وقبته تجتمع عيالك وكدعة والله ذلك يجرام عاصمة جمهورية السوماليلاند هربيسة. وصورت جيدا يراها خرمانيو يهدا يدقنك waxaan mar ku caddeeyay inuu yahay wasiir runtii ku guuleystay waxyaabo badan intii ay joogay wasaaradda dhalinyarada oo adeegay sida saaxiibada sheegayna gobollo badan oo khilaaf ka jiray oo ay goor ka mid tahay magaalada labaad ka mid tahay Togdheer oo degmada Gabiile ka mid tahay oo gobollo kale Salaam iyo Sanaag ka mid yihiin agihiisu ku tagay wasiirkii kaliya ee gobollada dalka muddada 3 bilood ee uu joogay soo wada mara isagoo u kuurgelaya xaaladda dhalinyarada ee sportiga iyo deegaanada ay dhalinyaradu ku ciyaarto warbixin koob farabadan ka soo saaray bahad ciidanka dhaqaajinta wasaaradda oo caymay laakiin waxaan aragnaa sifa gaar ah niman doonaya inay joojiyaan shaqada oo ku dhaqaaqay wal ka xunahay Soomaaliland way aragtaa dhibaatada jirto wasiirka uu sameeyay waxaan jecelahay gacmahooda jir wax ku qabtaan in laga qabto nimanka doonaya inay shaqada ka joojiyaan arrimahani ayaa ku soo beegmaya xilli uu socdo diyaargarow xoogan oo heer gobol ah oo loogu diyaargaroobayo qabsoomidda ciyaaraha gobolada dalka ee loo asteeyay in lagu qabto gobolka Togdheer waqtiyada fooda inagu soo haya Mustafa Ismaan Cabdiraxmaan Mustafa Teacher Halwanaag News magaalada Burco.